kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan wararkeena ku soo qaadi doono waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay mucaaradka Xasan Sheekh oo magaalada Muqdisho ka bilaabay abaabulo iyo kulamo culus oo ka dhanaa filla Soomaaliya iyo xog laga helay mucaaradka oo si lama filaan u aqbalay dalabkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya haddaba muxuu yahay kulankan aan caadiga ahayn oo xalay ka dhacay guriga madaxweyne Shariif uu ka degay magaalada Muqdisho xogta xubnaha kulankaasi ka qayb galay iyo wararkii ugu dambeeyay ayaanu idiin soo gudbin doonaa qodobada kale waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dib u dhac ku yimaaday shirkii golaha wadatashiga qaran ee lagu waday inuu ka dhaco magaalada Muqdisho haddaba yaa weeyay cid caqabad ku noqotay in shirkaasi uu dib u dhaco iyo dawladda federaalka Soomaaliya si la yaab leh kaga hadashay dib u dhac ku yimaaday shirka golaha wadatashiga qaran qodobada kale waxaa kamid noqon doono beesha uu ka dhashay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ogaadeen oo si la yaab loogu jawaabtay wasiir ka tirsan xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo caayay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda haddaba maxay beesha kumaday ay ka tiraaday warka ka soo baxay maamulka Puntland ee ah in ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya uusan ka dhalanin beesha uu heebtooda u sheegto carar xoog leh oo ka dhalatay warkaas iyo warkii ugu dambeeyay ayaanu idiin soo gudbin doonaa al-shabaabkii ugu badnaana waxaa lagu laayay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya xogta duqeen culus oo halkaasi ka dhacday iyo warar dheeri oo laga helay ayaan idiin soo gudbin doonaa soo dhawaada saaxiibayaal qodobadaasi kuwa kale ayaan idiin haynaa fadlan daawada haddii saaxiib nagu cusub nagu soo bir adigoo subscribe saarnay bartan YouTube ka rukumanaya warkeena in dhacdooyinka xisaalan goor balkan ku soo baahino waa hagaagan ku bilaawno warkeena wararkeena waxaanu ku bilaabi doonaa wararkii ugu dambeeyay siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda dawladda uu hogaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulamo kala duwan ka bilaabay magaalada Muqdisho siyaasiyiintan oo saacadii la soo dhaafay ku soo qulqulayay magaalada Muqdisho ayaa bilaabay inay kulamo ay ku yeeshaan guriga oo magaalada Muqdisho uu ka degay yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed waxaan halkaasi ka soconayo kulamo iyo sidoo kale abaabul xoog leh oo ku aadan wax laga yeelayo gogashii ku soo gabagabooday magaalada Muqdisho iyo baaqii madaxweynaha Jamhuuriyadda ee ahaa in gogashaasi ay u furan tahay in ay tagaan oo ay ka qayb galaan oo madaxweynuhu ay la kulmaan ilo xogogaal ah oo kulankaasi joogay ayaa waxa ay warbaahintu u xaqiijiyeen in siyaasiyiinta mucaaradku ay hadda qudareenayaan inay la kulmaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya isla markaasina ay ka tashanayaan qodobada iyo waqtiga ugu haboon oo ay markaasi madaxweynuhu ay la shiri doonaan ila wareedyo ayaa sheegay inay jiri doonaan kulamo kale kadibna ay go'aamin doonaan waqtiga rasmiga ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ee la kulmi doonaan siyaasiyiinta mucaaradka waxaana la sugayaa in maanta ilaa ay biri magaalada Muqdisho ay soo gaaraan xubno siyaasiyiin iyo sidoo kale xubno kale oo mucaarad ah oo maalmihii la soo dhaafay ka maqnaa magaalada Muqdisho siyaasiyiintan ayaa la magac baxay madasha samata bixinta Soomaaliya waxaana ay ka tageen Muqdisho marka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya gogashii uu iclaamiyay ay soo dhawaatay waxay dib ugu soo laabteen marka gogashu ay soo gabagabowday waxaana hadda ay doonayaan in madaxweynuhu ay la kulmaan xogta waxay tilmaamaysaa in siyaasiyiinta mucaaradka marka hore aysan doonaynin inay ka qayb galaan gogol ballaaran balse ay doonayeen inay la kulmaan madaxweynaha oo si gaar ah ugu la kulmaan isla markaasina ay kala tashadaan qodobada ay isku mandhaafsan yihiin sida arrimaha dastuurka iyo doorashooyinka siyaasiyiintan ayaa lagu eedeeyaa inay isku arkaan kaliya inay yihiin mucaaradka Soomaaliya ka jira iyaga oo aanay waxba ka soo qaadin xubnihii kale ee mas'uuliyiinta iyo madax hore soo noqday ee dalka xilal ka soo qabtay haddaba maxaa laga filan karaa kulanka mucaaradka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee la qorsheenayo aragtida hoos noogu reeb geesta kale waxaa dib u dhac ku yimaaday kulankii golaha wadatashiga qaran ee lagu waday 22 bishan inuu ka dhaco magaalada Muqdisho isla markaasina madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu iclaamiyay dawladda federaalka Soomaaliya faahfaahin ayay ka bixisay sababta rasmiga ee dib u dhaca shirka golaha wadatashiga qaran dawladda Soomaaliya ayaa baajisay shirka golaha wadatashiga qaran iyadoo shaacisay sababta shirkaasi oo qorshe u ahaa in 22 bishan uu qabsoomo oo laba maalin kaliya ay ka harsan tahay uu u baaqday waqtigan qoraal lagu baahiyay telefishinka dawladda ayaa lagu sheegay in 15 bisha dambe ee July uu qabsoomi doono shirkaasi sababta loo baajiyay shirka waxaa lagu sheegay dabaaldega toddobaadka xorriyadda iyada oo markaasi laga duulayo weyneynta iyo diyaar garowga xuska toddobaadka xorriyadda iyo ahmiyadda ay leedahay waxaa dib loo dhigay baa la yiri shirka golaha wadatashiga qaran oo horey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ugu baaqay in uu qabsoomo 22 bishan June ka oo hadda qabsoomi doono 15 Luulyo 2025 hadii uu alla idmo ayaa la yiri war ka soo baxay telefishinka dawladda
oo ay wasaaradda warfaafinta faafisay. Golaha wadatashiga qaran ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay aad loo dhalisanaa maadaama ay haystaan hal xisbi oo madaxweyne xasan sheekh uu hogaaminayo. Golahan waxaa hore uga maqnaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, waxaana la suluugayaa go'aanadooda maadaama intii soo hartay ay noqdeen hal xisbi siyaasadeed. Shirka ugu horeeyo ee golaha wadatashiga qaran waxaa la horgeyn doonaa tallaabooyinka ka soo baxay gogashii uu dhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidii horey uu u ballan qaaday madaxweynaha Jamhuuriyadda. Daba dhamaystirka dastuurka ayaa la filayaa in shirka soo socdo ee golaha aad loogu falanqeeyo walow ay diidiin maamulada qaar. geesta kaleetana beesha kumade ayaa waxa ay si la yaab leh uga jawaabtay warkii ka soo baxay Puntland ee ay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ugu tilmaantay nin hayb ahaan aanan ka dhalan beesha kursiga uu ku matalo kadib markii Maxamuud Ciidi Dirir wasiirka warfaafinta Puntland shir jiraayad uu ku qabtay magaalada Garowe ee gobolka Nugaal uu ku sheegay warkaas oo ay ka dhalatay caro xoogan ayaa Puntland waxay kala kulantay falcelintii ugu xooganeed iyadoo mucaarad iyo muxaafadba si isku mid ah ay uga jawaabeen. Doodaha taagan ayaa in siyaasadda lagu dhaliili karo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda laakiin gaf noocaasi oo kala ay tahay wax laga xumaado oo Puntland inay raaligelin ay ka bixiso. Odayaashan oo magaalada Muqdisho ku shiray ayaa runtii sheegay Puntland waxaana ay ugu baaqeen in raaligelin ay ka bixiso warkii ka soo yeeray wasiirkeeda warfaafinta. ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa mar hadiya goraale waxa uu beesha uu ka dhashay uu kala kulmaa eedan noocaani oo kala iyaga oo ay ku eedeeyaan in kursiga uu heebahan uu ku matalo uusan sida ay tahay uga soo bixin oo ay u arkaan in kursigaasi looga arrimiyo filla Soomaaliya oo uusan batalo ku lahayn sida ay qabaan doodo badan oo dhinacyada siyaasadda uu ku matalo ay ku doodaan. waa hagaag geesta kale degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya shalay waxa halkaasi ka dhacay duqeyntii ugu cusleed waxa halkaasi lagu laayay xubnihii ugu badnaa oo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. duqeyntan oo ay fuliyeen ciidanka cirka ee xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanayo saaxiibada caalamiga ah iyo sidoo kale ciidamada huwanta oo qaab howlgal infantry fulinayay ayaa ka fuliyay degmada Aadan Yabaal muddooyinkii ugu dambeeyay waxa gacanta ku hayay dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab waxaana howlgalkan uu noqday mid ay ciidanku ay ku bartilmaameedsadeen goobo bartilmaameed gaar ah waxaana lagu dilay xubno muhiim ah oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. War-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa shaaca looga qaaday in howlgalkan si guul ah ku dhacay waxaana la carbaabay magacyada xubno sarsare oo maleeshiyada Al-Shabaab ka tirsan oo howlgalkaasi lagu dilay. degmada Aadan Yabaal oo ah degmo istiraatiiji ah ayaa ay ciidamada huwanta iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka isaga soo baxeen horaan xilligaasi wixii ka dambeeyay waxay fariisin muhiim ah u noqotay dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab. waxa ay dowladda federaalka Soomaaliya ku guuldareysatay in muddo kooban ay dib ugu laabatay deegaanka waxaana ay noqotay in ay mar kale isku diyaariso howlgal saf balaaran ah oo ay dib ugu qabsanayso degmadaasi Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya. haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in xaaladda deegaanku ay tahay hadda mid kacsan dhaqdhaqaaqyo ayaa laga soo warinaya. gudaana wararkan waa naga talangalay.